إلا بدأ soo dhawaada saaxiibayaal xaaladii ugu dambeeyay degmadan Guraceel oo muddo dhowr bari aan ku suganaa rabaa inaan kaga warramo bal waxa ka socda saaka oo adoon Guraceel muuqaalkan hala sii share gareeyo oo hala gaarsiiyo dadka degmadan ka soo jeeda aqoon-yahanka iyo sidoo kale uqaasha gobolkan ka maqan ee rabta markaas iyadoo inay u naxdo ama ka diirnaxayso marka muuqaalkan hala share gareeyo oo dabcan dadka reer galmudug hala gaarsiiyo xaaladii ugu dambeeyay magaaladan ka warramaynaa degmada Guraceel xalay ilaa saaka ilaa maanta ayadu waxay iska ahayd mid xaaladeedu ay kacsan tahay dadkii magaalada waa ka barakaceen xalay magaalada xitaa anigu dadan ka mid ahay xitaa daafaha magaaladan ku soo hooyanay cabsi laga qabo in meeshan uu dagaal ka dhaco saa u jeedaanba maanta saaka magaaladii aad ogeydeen ee dadka tirada badan ay xilligan qulquli jireen subaxa ah maadaama anaga ay subax inoo tahay barqa ah ma jirto ogaa waxaad arkaysaa gawaari yar oo waxa weeye laamiga maraya laakiin sidaan xaaladdu ma ahaan jirin meesha hadda aan marayo waxay ahayd Bosnia meel yiraahdo waana meesha Guraceel ugu mashquulka badan laakiin saaka iyadu waa waxay noqotay mid haawanaysa saa u jeedaanba marka magaalada afarteeda koona ciidamada naga xiga sida dhinacan waqooyi hadaan ku hormaro deegaanada Haraale iyo sidoo kaleeto barax weyne waxa jooga la yiri ciidamo uu wato gudoomiyaha degmada Guraceel Faarax Fataate iyo sidoo kaleeto ciidamo marka iyagu la socda dhinaca ceeleere iyo sokodeedana waxa jooga ciidamo kaleeto oo dawladda ka tirsan magaaladu marka waxay tahay mid iyadoo hareeraysan ciidamadii ahlu sunnana afarta koona ay magaalada ka xigaan ciidamada ahlu sunnana afarta koona ay magaalada ka xigaan oo waxa way dhufaysyo waaweyn ay qoteen magaalada waxa ku taalay dhinaca waqooyi ceelal biyaha laga cabo ceelashaas haaman baa ku yaalay haamankiina waxa saaran ciidamo ahlu sunno marka ka tirsan oo dhufaysyo waaweyn ka qotay Guraceel weligeed lama sheegin sida hadda looga qaxay in looga qaxay waayo waagii horeeto magaaladan dagaal waa soo mari jiray laakiin hadda waa ka bedelan yahay colaadaha iyo cabsida hadda ka jirta dadkiina waa barakaceen gibigoodba wax yar mooyee wax intii kale oo magaalada xoogeeda waa laga barakacay marka waa bartamaha magaalada meesha hadda aan taaganahay sidaana ma aha jirin magaalada waa Bosnia meesha ugu dadka badan ugu mashquulka badan ee jirta magaalada Guraceel xilliyadan oo kale gawaarida baadiyaha ka timaada ayaa waxay markaas iyagu mari jireen goobtan hadda u jeeda oo idin muuqata iyagoo markaas baalkii sheeg wada xoolo kala duwan oo tuulooyin ka soo qaadi laakiin maanta waa u jeedaan saaxiibayaal sida xaaladdu tahay xitaa meelaha qaarkood waa xiran yihiin qaarna waa furan yihiin marka dadka halkan jooga inta halkan joogtana waa dareen ku joog oo haddii xabadu bilaabato waxa laga yaabaa inay kala cararaan laakiin magaalada caruur iyo haween iyo odayaashii waayeelka badi waa la wada qaaday oo waxa la siiyay saxabad ku dul bilaaban meheradaha qaarkood oo kuwaas waa furan yihiin qaar yar baa furan laakiin inta badan waa xiran yihiin meesha ugu mashquulka badneed waxa weeye magaalada meesha ugu mashquulka badneed ayaan taaganahay laakiin saaka xaaladdu waa taasa magaalada ugu dadka badan ugu shacbiyada badan galmudug ay ka mid ahayd laakiin dad siyaasad isku haya ayaa sidaas magaaladii waxa weeye ka dhigay dadkii shacabka ahaana gebi ahaanba waa barakaceen xaaladuna waxay iska tahay allow amuuraha sahal odayaasha deegaankan ku suganna dee maalmihii ugu dambeeyey waa ka warhayseenoo baaqiyay jeedinayeen iyagoo markaasi sheegaya in magaalada aan lagu dul dagaalamin laakiin hadda cid
dhag jalaq u siiday ma jirto magaaladana dee waa kaas magaalo waxay iska ahayd cadsade magaalo waxay iska ahayd dadkeedu aad u badan yihiin laakiin maanta kulley qofkii Gurceel yimid ama qofkii ka soo jeeda magaaladan mashquulka badan dadka tirada badan ku ogaa ayaa fahmi kara in saaka oo subaxyada Ilaahay abuurtay kamid ah in magaaladii sidaas u ballaarnayd laamigeedii aan taaganahay aniga iyo dad markaas iyagu dareen ku joog ah oo xitaa aniga ruuxadeyda aan xalay duleedka magaalada aan ku soo hoyday saakan aroortii aan soo kalahay oo aan isiri magaalada iyo saxaabada kugu qabsan marka aniga ها يا والله حاجه وقعد ما يعني جميل انا جميل هي حوله ما كيس ساكت ما waxa wala keenay هي wax caadi ma aha arintan هي saas uu yahay dadka maxaa ugu baaqaadeen macana oo dhinacyada siyaasadda isku haya oo magaaladan ku hardamay ya wax kale ugu baaqi ma waxa ugu baaqayaa maaratay dawladdu arintan ay ka dadaasho هي magaaladan inta da'da aad jirto kulli waxa isleeyahay sana 7aad waa ku dhowda in la iiboobo kuma aana talagelin oo hadda ma ku doomi maayo wax taagana waa garanaya waa ogahay adeer weliga qaxano kala ma hadii aad wacdaan hal mar aan war idinsiinayna maxaana sii lahaydeen ma baaqa jidi lahaydeen ya baaqa soo ku saabsan yahay isla adeer ya adeer shaqada ay waa maasant mid ka mid ah uqaasha degmada wuxuu sheegayaa in magaalada waxa weeye xitaa suuqa xoolaha aysan jirin saaka dadkiina marka xaafadaha tagtaan ama xaafadaha la tago aynaadee waxa la arkayaa xaafadaha haweenaya oo waxa weeye xoolihii iyo dadkii iyo wax allaale wixii ku noolaayo dhan waxa weeye banaanka magaalada waxa weeye isugu tageen taasna waxa waaye ugu wacan waa colaadaha iyo dhiilada ka jira magaaladan marka kulley dadku aad bay waxa weeye u hadal hayaan dhowrkii habeenay ugu dambeysay halka anigu aan ku sugnaa magaalada waxa weeye habeen walba waa laga qaxay laakiin dadku xoogooda waxa weeye baalkii sheeg xoogooda waxa weeye hay soo dhow asad ka war magaalada ma ka qaxda هي أظن ما قصد عرفتي ما قصد عرفتي فاميلي قرابتي إيه كده ما أنتوا هي لأن عيال إسكواي سياسة ما حقوا باقي له waxaan ugu baaqi lahay nidaamkan dawladnimada ee galmudug hal la taageero haya nimanka dhifaysadana kor qaatay waxaan haya dawladnimada hal la taageero haya galmudug state iyo dawladnimada shaytan waxaan dhihi lahay dhifaysadana kor qaado deegaanka loo heliyo nabadda loo heliyo dawladnimada hasabayso aad baa mahadsantahay mid ka mid ah dhalinyarada degmada Gurceel oo ahaa oo baaq jeedinayay oo lahaa magaalada loo naxo dhufaysyada iyo waxyaabaha markaas laga qodsanaha laga dul qaado lahaa waa dareenkiisa sida isagu uu hadalka u dhigay ayuu ka hadlayay saaxiibaday waa ila socda Simba soo dhow magaalada maada ka qaxan miya soo jeeso Simba soo dhow magaalada maada ka qaxan hay maxaa uga haweyday la magaalada lagu kala caago xaafadaha ka soo kacay waa wadcillo hay أنا مجال كمان تحمل حصلها يعني بكرة قبها فاستيت أنا هذا الجرسير إن شاء الله. مجال مركز حافظه هذا أكتي كورن سيد ضدك وقحان أظن إنها واحد مكسوارك ضدك حي حافظها حالي وصل أركي التلوين بابورتي نوع الوضع حي حافظها أنا نجينا هذا حي ساق ما ساق عندي وعقد تقولي درس أيضا ما قفلته حي تذكر كنا أقولي أنا نجينا كذي كسر عاود حي أفضل نجينا ضمن waa gartay xagee dadku aadeen asleeda markuu hayay meelaha ugu badan dadku waxa waaye dhab albaraf ilaa inta kastoo dhan oo wada qaxay dhamaan foolay waa gaba waxay inta u jeedo waxa ku soo haraway kamera iyo nin xamaash bis laakiin hooyooyinkii iyo caruurtii iyo arigii xataa waa la bixiyay wax magaalada ku haray hadda neef arig magaalada ma joogo waxbarashadana waxay leeyihiin waxbarasho marra la xiray وهاجك أدو ما سيها صاحبك يسمى دليل المجال كم ذا يوها قاري أصدق وجه دام وحصار علب عد بالوق حنايا وما سنت هاي ضدكنا دي كل حلي
magaaladan hadda aan joogay ee Gurceel cid ka seexatay runtii ma jirto oo qof walba waxa weeye cabsi uu la seexo waayay dadkii halkan ku haray dhalinyarada isugu jiray iyo sidoo kaleeto dadkii markaas iyagu isdhihi karaya xabad haddii bilaabato waa xeeladaysan kartaa laakiin gebi ahaanba magaaladan dadka ugu tirada badan galmudug ay ku nool yihiin oo gaar ahaan gobolka galgaduud magaalada labaad ee dadka badan ay tahay saaka waa haawanaysaa waxa saaka ka dhigana waa siyaasadaha la isku hayo ee u dhaxeeya galmudug iyo sidoo kaleeto ahlu sunna wal jamaa xaaladuna dee kulley aad bay u kacsan tahay soo dhow saaxiib magaalada ma ka qaaday hay soo dhow ii waran magaaladu waa haawanaysaa sida aragto maanta aad ilaa qurac hadii aad ka soo baxday magaaladu waxa waaye sida hore ma ahan magaaladu saacadan jaamay ay jirtay dadkii marastii iyo weeqahan dadkii mataqaanaa caruurtii iyo hooyooyinkii dadkii aan arkaysa karin xabada weeqahan magaalada waxa ku soo haray dadka inta badan dadka waxay aad jireen xaasliyaal iskaabul u kala badnaa jireen saaka xaasliyaasha iskaabul mid walba waxa waaye sheexiisa magaalada u soo doontay marka magaalada hadda waxa waaye sidii dagaalka loo isdhahay dagaalka aroorta lagu soo qaada caawa lagu soo qaada xaladu ma saacad masuujeeda waa ku bari anigu xal waxaan saxay 8 saac saakan 2 saac magaalada joogaanay xagee marka adu dadkaaga iyo familkaaga xagee u qaxdo aniga horta familkayga waa joogaa magaalada laakiin waxa waaye markii xabad iyo wax bilowdan waxaa la rajayaa inaan bixino sababta aan bixin la'aan waxa waaye maalintii waa qorax habeenkiina waxa waaye waa qabow dad yar caruur badan ayaa ku jira aad ka sikirin qoraxda iyo qabowga habeenka jira marka waa kaas aad baa maasan tahay marka maxaa ugu baaqi lahayd marka dhinacyada isku haya siyaasadda ee dadka bari kaash Gurceel uma baahna xabad Gurceel uma baahna dagaal Gurceel waxay u baahan tahay xasilooni iyo nabad waxay u baahan tahay in dadka jooga ay ku heshiiyaan waxay u baahan tahay in mataqaana odayaasha iyo labada maamul ee isku haya ahlu sunna wal jamaa iyo maamulka galmudug in ay u turaan maatada maalinkii qoraxda joogta iyo habeenkii وقت أدنى ما سنتهاي كل متكمل الغيرة المجال أيو كم ذا كل واحد شيء المجال ده ضدك أي كوضع قحين والله وضع بركعي حدي حبضوا باللعبتنا مجال ده ينقون كرتميد طبعا بربرته ما دام أفرت كونه مجال ده إذا ما حوج لنا حاجات وقال كان هلا شرقية أو هلا جارسية ولا لها غير قلم مدوكسو شيء ده جارهان دق ماذا برعل سيء أركان مجال دودي شنايد مجال دودي وجودت كبنايد قلم مدوك إن ما أنت هاونيسو أو حتى هو ينكي ويلدها أبياش ويلدها يعرورتي ما أنت يدو تشيلال درنا يتهاي أو كل الوجرو إن بنانك يودو شجار أو قرحنا يكون دلنيسو هبينكينا دحن أي لجوجلايهين أو حتى شمن بيوت حتى يقرك أسعارين إن عرورتي يدك ويلدها وكرعه هلا شرقية سلوا أرك حالها قدام بي برعيل كتاجن ما دام مجالده إسكتها مجال الله شو جيدنا وياي شو إنسان على هذا وكم مقضى وضيال بكري هاي فرسمي قصده بل صافير بالعري ما قحد أبوه ما قحد هاي قاهرة تجي قاهرة تك حار تجي حار حقوق يلا دينعونا حاجة نحيا كفروا هي وحكدر أولاد هبرج رأي تحت على هذا واقرتي ما تاس waxay u taala qabiil ilaahay habad baadiyaan leeyahay dadka kala baashay midaan ka waran magaalada dadka aduu imisa qoysa qaxida saddex haya xageegida saddexaas xaar haya caruur miyaa ku jira dadka caruur yar ma taay ku jirta dariskaaga ka waran xaafadaha ku dhawaa iyo waxyaabaha wax jooga mala magaalada hal qof ma joog maxaa ku baaqay marka waaye waxa ku baaqaa nabad haya yaa ugu baaqay marka waaye ina ciidamada nabad u qaado oo waxa dhan nabad ما قحي كوجور Gurceel aad joogto waa qaxda mise ugu darnaa waa kan waay kuwii hore ka waran oo isku la qixi jiray waxa ka daran roob hadda xilli roob lagu jira haye bacmaysta qolada bacaysa ka waran qolada bacaysa waa dhibaato anigu hadda xala waxaan garay saddex xabo haye waa u xiray dhaxana ka sii daran xala ma seexato aduu ma seexan hadda seexan rabaa ama soo jeed xalo dhan wallahi sidii maxaa ku soo jeed marka way maxaa lagu sheegay walaala isu jeedi ay maxaa lagu yiri waxa waay walba waxa ka daran xabadaha waa maray in barka tuumayaya haya dadkuna dad iyo dunyadii looga tagay xabadaha ayaa baabaa odayaasha halkan ka soo jeeda beesha cayr maxaa ugu baaqi lahayd nabadan u baaqa haya
odayaasha markii hadlaana dad ka daba hadlaa haya dad haya ka daba hadlaa oo siyaasad iyo wax ay wata aad aqoon haya meesha nabada laga rabaa iyo cadaalad gurceel hadii gubatay dad yay u darantaa shacabkooyinaha iyo dadweynaha degan u darantaa haya ayagiina dhaama siyaasiyiinta iyo dadka aqoonyahanka ee ka soo jeeda halkan maxaa fariin u dir lahayd waxaan fariin u diraa nabad inay ku baaqaan haya oo meeshii shacabkii iyo dadkii dhamaa shay u aheer gurceel ganacsiga ay u soo laabato haya taashan u baaqaya aad baad maasan tahay adigana waxa weey soo noqosho labaad aan ku rajeynayaa wuxuu ka mid ahaa dadka deegaanka wuxuu ka warramayay xaaladihii ugu dambeeyay ee ka jira magaalada baalkii sheeg barakaca isugu jirta waa maasanta maadlaysa adeer ma qaxday adeer ما بركة عذا ما بركة عذا وبركة هيا حاجات هذا حاجات عرورتي وحي يا ضدك جاي ميل يرا دبر هيا مقال أري ما لهين دبد الله ما جري ما شقي سجل كان ما أنا لهين دول الحكام قاعدة جري مقال أنا كشقي سجل وعرفنا ماشي هتروح حكام موضوعات كتير صح markana hor magaalada dad ka jilacsanaan hadar waa baraka taas waa saas dadkan dawladda u sheega oo dalka u dhaartay oo kitaabaha maray oo dalka iyo diinta iyo dadka jilacsan u dhaartay taangiyaasha la jiiraa la yimid aana barakaashay dadkaas haday dad ilaahay yaqaan yihiinna anaga leexdeen ilaahay hadayna aqoonna ilaahay aan u sheeg waxaan ku weydiiyay waxa tahay magaalada joogi jiray in muddo ah waliga ay Allah inta halkan joogtay qax ka daran ma jiray mase ma qaxin ba waligay haya waligayba ma qax hal maalmo waxa jirtay dawladda cirfa iyo goobaha ay yimideen maalintiina ma aanan qaxin meelaha dirbida iyo biyahanagan ku jirnay daqiiqada ka bacdina waa lagu kala bax qaxdan banana ma soo maray meesha aad carruurta u qaxday dad badan oo xaafadaha agahaaga iyo deganaa oo qaxay ma jiraan dad oo maartay tukaan ma lahay iyo dad cajiska oo la yiri inaan la qaadino roon oo banaanka loo bixin kaliyaha joogaba oo darbi dhagax la geeyay hal qoloo la joogaaba kamid ma ahanba deegaankan oo dhan labada laynba asaakan ku soo wareegay wax jooga male hadda mar dhowna xaafadii aadi raba waxaan ku weydiiyay arigeedu ma la qaxdo hadii ari Allah ar ma balihiye xoolo ma lihi ratina mali hal ma lahayn magaalada hal yiri waa shacar marquma lahayd ma سوق مفرين بريتا waa ku dhisi suuq mufreen ariga suuq ariga mufreen waa socdaa waa furiyo kaas waa shaqeeya meesha aad u qaxiday dadka adiga aad markaas iyadu waa quraacda hoostooda dadka fadhiya haya taas haya barkada niman barkada ku lahaaya tarikada biyaa laga qaada marka waxaan hadan alla naga soo gaari anu hadda moogi Soomaali kale inay naga soo gaarey xaalku ma fiicna alla haduu roobna siyaada caadi ay noqolee oo dadku biyo helaan beeshaar maxaa ugu baaqay ilaa iyada gurceel iska loo beeshaar waxaan ugu qaaraa wiilasha qoryaha sita oo dhimana ama dhima doono ama kuwii dhintay waa ayuug siyaasiyiintuna waa ayuug waa gartay aqla ha yeesheen oo ilmahooda iyo dadkooda waxay ku dhimaayaan bari qiyaamana ay naarta kula dhacayaan nimanka odayaasha oo inta koofiyaasha qaatala beesha ciiran nabadoon saas laguma noqdo dadka la qaxiyo oo ilmasaqi raasadda hadda la soo dhaawacaa halkaas la soo dhigay qaxow ahaa mid Mooriyaan ha inta wadada u galay oo soo dhaawac haye baabuurkiisa waa uu ka soo carar odan nabadoon waa nimankii ilaahay culimada naga baxeen hadii kale waa iska dhacayna nimankii dhahay nabadoon maaha ha ogaadeen inayna nabadoon ahayn ee dhuuli qaatayaal hal $100 siistay qabiilkii dhamaayo أو كدش أو $100 زيد أتوا ولادها نجا بحث السنة معها وتدقمتنا معهن ودوني قاته شرف كيسي دم وحوس يستل عقل وحاسوكرنا نودنا نوما واسك محافري ودرسها واسك أنا هو نكر أميسن أو بيش بقرطي أو قرية أو نحلة مجلة أنا هو واسك وركيس وأنا أجيي وحوكوهم أنت أصدق ما أقول. وما صنت هذا ما صنت ميت كم إذا odayaasha magaalada ayuu ahaa ka hadlayay xaaladda taagan iyo sidoo kale dhibaatada haysata soo jeedaan masaaxiibayaal
waxaan ku suganahay magaalada Gurceel gobolka Galgaduud oo dadka ay ka barakaceen xaaladeeduna ay tahay mid saansaan colaadeed iyo waxa weeye jawi kala duwan ay ku jirto marka muuqaalka hala sheer gareeyo saaxiibada qiimaha iyo qaayaha leh halkan iga daawanaya magaaladana de kulay qofkii un jooga ama qofkii maqlay un baa looga sheekeen karayaa laakiin qofkii waxa weeye ka maqan xaaladda ka taagan hadda iyo sida wax yihiin ma oga muuqaalkan haddii aad ilaa bilowga iyo gabagabada hadda aan ku jirno aad nala socotay waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad sheer gareyso oo asxaabta gobolka ka maqan aad la wadaagto isla markaana xaaladihii ugu dambeeyay aad ay halkan kala helaan hay ma barakacad hay carruurtii ma qahday waa gahaynay nafar magaalada kuma harin haye ka waran aad maxay saa waa fiicanahay maxaad dawladda iyo dhinacyada halkan isku hayay ahlu sunna maxaa ugu baaqaysaa niyo anu kuwaas waa ka gaabsanaya haye haddaan la hadlayna waxaan leeyahay carruurta magaalada laga saaray ha lagu soo celiyo waa jirta dad islaami haddaad tihiin waa jirta dhufeysada ha nala dul qaado waa jirta meesha haddii isdagaalayo meelahaas hal wadaan leedahay baan leenahay intaasaan ka codsanayna waa codsi baa naga tahay Gurceel markii ugu horreysay oo ka qaxday adiga weligay dhaxii ugu horreeyay baan qaxay maxaad la kulantay oo aragtay marka weeye haddaad qaxan iyo boor iyo dabeel iyo qurax haye wax kale ma hayno dadka meesha aad u qaxiday adiga carruurtaada iyo xaaskaaga dad joogay oo halkan ka qaxay ma ku aragtay war malyumaad baa dhooban meesha haye ma ku dhibaataysnaayeen waa ku dhibaataysnaay ilaahay u gargaar waxyaabaha haysta maxaa ka mid ahaa marka war biyo la'aan kuleel dhaxan waxaas dhan maana meesha waa loogu barwaaqo haye waka waa gartay aad u mahadsantahay waa ku mahad celinayaa mid ka mid ah dadka magaalada ayuu ahaa kaasi oo kalley cabashadiisa ka hadlayay loo diirnaxo oo dadka deegaanku ama dadka beesha halkan u badan ay u diirnaxdo oo caqligu shaqeeyo magaaladan kulley magaalo ballaaran oo aad u weyn oo magaalooyinka hadda ka jira Galmudug magaalooyinka hadda Galmudug ka jira ee ugu dadka badan ayay ka mid tahay laakiinse saaka weji kale leedahay dadkii waa ka carareen waana laga barakacay waana laga hayaamay iskuulaad iyo sidoo kale goobo waxbarasho oo maadi iyo diini lagu dhigto intaba waxa weeye ma furra saaka waxa weeye dad yar unbaa jooga ayagana waxa ay ilaashanayaan hantida magaalada ka taalla iyo guryaha iyagoo markaasi ka cabsi qaba in marka haddii ay ka wada tagaan magaalada arrin dhici karto laga loo dhacayo ama tuuga ay bilaaban karayso maadaama magaaladu dee magaalo jawigeedu uu yahay mid colaadeed ay iska tahay muuqaalkan sheer gare adigoo mahadsan haddii aad nala socotay bilowga ilaa dhammaadka